Da'daydu waxay gaartay 31 sano. Wax guurana nasiib uma yeelanin. Balse markaan bilaabay istighfaarta waliba siiqadan anigoo akhrinayo Allahumma ighfir lii warhamnii wacaafini warzuqnii wahdinii. Alxamdulillaah Ilaahay wuxuu u arsaaqay guur. Waxaan kaloo helay shaqo. Waliba muddo 9 sano ah ka hor ayaan jaamacadda ka qalin jabiyay. Wax shaqo ana maan heli jirin. Alxamdulillaah uurna waan yeeshay istighfaarta bilaabay kadib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo walaalaha cusub ee dib nooga soo biiri doono. Waqtigaana soo geliseen jasaakumullahu khayr. Jisidiina janaalaha ka dhigo. Dhammaan walaalaha xanuunsan, walaalaha kurbeysan, walaalaha deymaysan, walaalaha guur la'aanta, walaalaha caafimaad darrada haysato, inta awlaada ka xanuunsanta, inta xabsiyada ku jirto, inta shaqo la'aan ah, inta ay haysato sharciyadii iyo arrimihii dowladda uga xirnaa ay ka culus tahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa arrimaheena oo dhan Ilaahay inuu fududeeyo, culeyskeena fudud ka dhigo, kurbadeennana inuu farxad iyo faraj uu Ilaahay noogu bedelo biidni raxmaan. Aamiinteeni aamiinta malaa'igta Allah kulmiyo arladan ka duceynay samada Allah ka aqbalo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa bogtadan iyo baahidan inuu bini'aadan ka tusin gacanteena teesaraysa oo ka dhigo inoo macsilayna Allahna siiyo. Allahumma aamiin. Aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyina Muhammad. Aanu gudagalnay ciwaankeeni mawduuceeni waa qisaskii laga arkay xuska alle iyo dikriga iyo fadliga dikriga uu leeyahay. Qisada ugu horeysa waxaa ka sheekeynaysa gabar waxa ay leedahay waxaan ahay 31 jir. Wax nasiib umaana yeelanin guur. waxa qalbadeyda ay jecleed inaad la guursado ama amin hore la guurso sida gabar walbeento ay u hesho guur ayada oo yar. Balse muusan noqonin nasiibkeyga. Kadib waxaan istighfaar ayaan bilaabay dhahday istighfaarta ayaan joogteeyay iyo walbaaqiyaatu saalixaad ayaan akhrinayay. Waxaa kaleento waan bilaabay duco waliba qaabkan ayaan u duceysanayay Allahumma ighfir lii warhamnii wacaafini warzuqnii wahdinii. Ducadaas ayaan akhrinayay. Waxaan kaleento akhrinayay ay dhahday qiraa'atu suuratul baqara ayaan waday. Waliba waxaan akhrinayay qaybta dambe ee habeenkii ee u dhow salaada subax ama xilliga suxuurta loo yaqaan ayaan soo kici jiray oo aan akhrin jiray suuratul baqara. Markaan sidaas u waday 3 bilood kadib waa la isoo doontay, waa la guursaday. Alxamdulillaah shaqo ayaan helay. Waxay leedahay inkastoo aniga aan 9 sano ka hor jaamacad ka qalin jabiyay wax shaqo ah oo aan heli jiray ma jirin. Shaqooyinka dhan way iga xayrnaayeen. Shaqo ayaan helay. Alxamdulillaah guurka kadib uur ayaan yeeshay. Ilaahay mahad iska leh fadligaasna khayrka Ilaahay oo soo noqday istighfaarta oo badiyay. Ducada iyo akhrinta suuratul baqara iyo soo kacida salaatul leylka iyo witriga iyo akhrinta suuratul baqara insha Allah ayaan ku helay ayay leedahay. Xuska Ilaahay ka qoofsanina. Qisadan kale waxaa ka sheekeynaya qofkan waxa uu leeyahay waxaan lahaa dariskaas oo muddo aanan Ilaahay ku arsaaqin wax awlaad ah. Muddadaas oo 7 sano ah. Waxaan Ilaahay wuxuu ugu bishaareeyay awlaad waliba 3 carruur oo mataano oo hal mar ay dhaleen. Waan weydiiyay ayuu dhahay ninka ayaan weydiiyay muxuu Ilaahay idinku daaweeyay oo ku hesheen awlaadan. Wuxuu dhahay asbaabta aan ku daawoono waxaa ka helaysaa ayuu dhahay aayadaha ku jira suuratul nuux oo uu ka wado istighfaarta ayaan joogteynay. Maalin walba intana waxaan akhrin jirnay ayuu dhahay ilaa 30,000 oo mar oo istighfaar ah. Ilaahayna wuxuu ugu arsaaqay awlaad ay ka xirnaayeen muddada 7 sano ah. Qisadan kalena qofkan waxa uu leeyahay waxaan kaga caafimaaday xanuuno fara badan. Ilaahay waxa uu siiyay maal, murugtii iyo culeyskii iyo hamigii Ilaahay uu iga dulqaaday kadib markii aan bilaabay istighfaarta inaan nacinsado. Alxamdulillaah. Waxa kaloo leeyahay qofkan shartii iyo dadkii ahlu sharta ahayna Ilaahay wuu iga kaxeeyay. Waxaan ku celcelin jiray ilaa 5,000 oo mar maalintii. Waxaan dhihi jiray astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Waxaan ku soo khatimi jiray markaan dhammeeyo inaan watir tukado. Wuxuu leeyahay waa yaabaysiin oo noloshiina way isbedelaysaa joogteeya khayrka iyo dikriga Ilaahay. Waxaan idin sheegayaa marka qofka uu 5,000 akhriyo 10,000 akhriyo adiga 5,000 iyo 10,000 in akhriso muhiim ma aha balse waxaa muhiim inaad ku celceliso oo aad niyadana khaalis ay ku tahay
tiradan iyo waxaan waxa waaye waxa yani khaas u tahay qofka qisada iska leh oo intaas ayuu akhriyay adigana waajib kuuma intaas ina akhriso waa ka badin kartaa waana ka yareyn kartaa qisadan kalena waxa ay leedahay nolosheedu waxa ahayd mid duntay oo yani baabaaday aniga ninkeygana waan kala tagnay muddo sababtoo ah waxaana loo sameeyay ayay leedahay sixir tafriiq waxaan bilaabay inaan istighfaarsado anigoo u niyeysanayo ilaahay inuu murugta iyo walwalka iyo culayska iga dulqaado aad ayaan u istighfaarsaday ilaa uu ninkiiba ila soo xariiro oo ila soo hadlo kadib waxaan u sheegay oo ayaan dhahay oo adigana istighfaarta bilow oo istighfaarta wad markuu istighfaar waday asagana alxamdulillaah waxay dhahday waan isku soo noqonay labadeeni sixirkina wuu naga burburay oo naga furmay alxamdulillaah nimcadaas iyo barwaaqadaas iyo reerkaas inay isku soo noqdaan iyo sixirka inaan ka caafimaadno waxaan ku gaarnay ayay leedahay inaan istighfaarsanay qisadan kale qofkan wuxuu leeyahay balaayada iyo ibtilaa iyo dhibka igu dhacay mid aad iyo aad u weyn ayuu ahaa waxa uu dhahay waxa ay asiibay sixir alxamdulillaah waana ka caafimaaday ilaahay ama had iskale fadliga aan uga caafimaaday iyo barakada iyo nimcadaas aan ku helana waxay ahayd in aan badiyay istighfaarta oo aan istighfaarta ku celcelin jiray har iyo habeen saacado yar oo kooban ma ogeey inta kale nolosheeda waxaan ku beesgareeyay ayuu leeyahay istighfaarta alxamdulillaah ilaahayna wuxuu iga caafiyay sixirkii la ii aasay qisadeena ugu dambeysa maanta waxay leedahay waxaan jeclaa inaan ku biiro yacni kulliyadda caafimaadkana darajooyinka lagu helaayo ama lagu galaayo oo lagu aqbalayo waxay ahaayeen darajooyinka sare ee balaaska iyo marka waxay dhahday darajadeedana aad ay u liidatay balse waan dhiibtay ay dhahday waraaqadaheygii alxamdulillaah ilaahayna wuxuu yacni igu ilhaamiyey inaan bilaabo istighfaarta inaan duceysto qiyaamul leyl inaan sameeyo inaan ilaahay isku duleeyo oo isku dhuldhigo anigoo waliba duceysanayo waxay leedahay wallaahi jaamacadii 2 isbuuc kadib waa la isoo aqbalay oo waan ku biiray subxaanallah qabuulka in la aqbalo waxay ahayd yacni inta aan rajo ka qabo nisbe aad iyo aad u yar alxamdulillaah balse ilaahay awoodiisa iyo nimcadiisa iyo fadliga iyo barakadii ducada alxamdulillaah iyo istighfaartii aan badiyay waxaan ku helay si mustaxiilka ahayd oo waliba jaamacadaas qalbigayga ku jirtay ayuu ilaahay iigu sahlay qisaskeeni maanta intaas ayay ku egyihiin aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina istighfaarta fadligeeda iyo barakadeeda ma wax la soo koobi karo waa nimco ilaahay uu na siiyey inta dareentaa yar ilaahay naga dhigo kuwa khayrka fahmo oo ku dhaqmo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا waxaan idin leeyahay istighfaarsada ilaahay waa mid dambi dhaaf badan haddaad istighfaarsataan wuxuu ilaahay idinku kaalmeynaya oo idinku xoojinaya roobka wabiyada beeraha awlaada ilmaha hantida wax kasto ilaahay idin quweyna idin xoojina caafimaadka nimco kasto way nagu dureeraysaa markaan istighfaarta aan sameeyno insha Allah ilaahay naga dhigo min almustaghfiriin allaha min naga mid dhigo dambigeena kii hore kii dambe Allah dhaafo gafkeena geerideen ilaahay ma kulmiyo toobatan nasuuxatan qabla al-mawt allahna siiyo kalmada afkeen u dambaysan Allah ka dhigo shahaadatu an laa ilaaha illa Allah wa anna muhammadan rasuulullah gafkeena geerideen ilaahay ma kulmiyo aamiinteena aamiinta malaa'ikta Allah kulmiyo samadan arladan ka duceynay samada Allah ka aqbalo qof walba meesha ku qurbeysan yahay Allah ka qurbatiro Allah ka oontiro muraadkeena macsaleen allahna siiyo بين الرحمن ولا لها قالية إلى وحن كبرينا إن أو نصيو إلى وحن كبرينا إنه نصوء حق نوصو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا حق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطل وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن شاء الله فيديو ولا لها قالية لايك تسيسارة شير كريه wixii comment ra'yigiin hoos ku qora subscribe kana noo saar aad iyo aad ma santiin astawdiikum allah alladhi la yudii'u daa'i sanad ayaan reer lahaa wax uurana ma yeelan subhanallah balse markii aan istighfaarsaday anigoo u niyeysanayo inaan uur yeesho oolaad ilaahay igu siiyo bil gudaheeda ayuu ilaahay igu arsaaqay durriyad assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh soo dhawaada walaalaha qaaliga walaalaha hore noogu xirnaa iyo dhammaan walaalaha nagu cusub hadda nagu soo biiri doono جزاكم الله خير أيادن ليهي وقتك إيوه
taymka aan ugu soo bixiseen allah idinka jisa iyo khayr maryo jisiinana janno allah ka dhiga biidni raxmaan. walaalaha ducada naga soo codsada ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu umuurahooda u sahlo, faraj khayr qaba ilaahay siiyo, inta xanuunsan uu caafiyo, inta xabsiyada ku jirta allah ka soo deeyo, inta deemaysan allah ka gudo, inta awlaad la-aan awlaad baari allah siiyo, inta kurbeysan kurbada allah ka fiido, meel kasta inta oo culays naga saaran yahay fudeed iyo faraj ilaahay noogu bedelo. bugtadeena iyo baahideena bini'aadanka ilaahay matuso, gacanteena tii sareysa allah ka dhigo. aan badina salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. allahumma salli wasallim wabaarik calaa nabiyina maxamed. waa qisaskeenii laga arkay istighfaarta iyo fawaaidda xuska ilaahay ay leedahay iyo cajaa'ibta ay ka arkeen asxaabu dikriga. ilaahay ayaa mahad iskale maalin kaleenta noo siiyey fursad inaanu cibaadaysano, caafimaad taamana siiyey. ilaahaygaas ayaa mahad iskale maalin kaleenta anagoo islaam ah oo digrigiisa iyo xuskiisa nooleynayno nagu kulmiyey barta youtube-ka. ilaahay ayaa mahad iskale nimcooyinkuuna siiyey farada badan oo aan la koobi karin. ilaahay subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala asagoo istighfaarta ka hadlaya wuxuu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana gafaaraa. ilaahay istighfaar weydiista waa mid dembi dhaaf badane. yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلهي مركا واستغفار سنو waxaa nagu xoojinayaa awlaadii iyo maalkii roob ayuu noo soo deynayaa oo xoolihii ayaa noo dararayo, wabiyada ayaa noo buuxsamaayo, beerihii ayaa noo soo baxay. nimcada ilaah oo dhan ayaa korkeena ku sugnaanayso. qisada ugu horeysa waxaa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay subxaan allah, waxaa la qabay muddo sanad ah, sanadkaasna wax uur iyo wax awlaad ilaahay uguma arsaaqin. waxaan joogteeyey oo bilaabay inaan istighfaarsado aniga u niyeysanayo in ilaahay awlaad iyo uur ilaahay ugu siiyo. alxamdulilah isla bishii ilaahay wuxuu igu arsaaqay awlaad, uur ayaan yeeshay. waxay leedahay nimcada istighfaarta laga helayo ma aha wax la soo koobi karo. in awlaad bas lagu helana ma aha, khayr fara badan oo aan xisaab lahayn ayaa lagu helaa istighfaarta. waxay leedahay alxamdulilah. adinkan waxaan kula dardaarmayaa inaad istighfaarta badisaan nafteyda iyo naftiinaba. qofkan waxa uu leeyahay istighfaarta waxaan kaga caafimaaday sixir. alxamdulilah markii aan badiyey kadib istighfaarta ilaahay wuxuu iga caafiyey sixir oo waxaa soo bandhigmay dadkii dhibaatadana ii maleegay ayaa fashilmay, sixirkina wuu buray alxamdulilah. qisadan kale waxa ay leedahay xaqiiq ahaan istighfaarta waxay furtaa abwaabada khayrka iyo wanaagga. waxaan raadinayay ayuu dhahay muddo waxaan raadinayay shaqo, waxaan haystay shahaado jaamacadeed, mana aan helin wax shaqo ah. sanad in ka badanna waa raadinayay. marka dambe waxaan go-aansaday ayuu dhahay inaan istighfaarsado habeen iyo maalin. alxamdulilah markii aan joogteeyey inaan istighfaarsadana waxaan helay shaqadii markii ugu horeysay oo ninkii oo shaqada maamulaheeda ahay aan kulanayba hore ayuu iga qaatay ayuu leeyahay. kadib shaqadii kadib waan guursaday, haddana wax awlaada ilaahay iguma arsaaqin. kadib haddana waxaan go-aansaday ayuu dhahay inaan istighfaarsado habeen iyo maalinbo aan istighfaarta joogteeyo, aanan akhriyo suuratul baqara. alxamdulilah ilaahay awlaad ayuu igu arsaaqay, weliba mataano kalena waxay leedahay istighfaarta oo aan badiyey. alxamdulilah waa sababta iga dhigtay inaan shaqo helo, iina furtay mashruucyo fara badan oo aan ku noqday nin milyaneer ah. markasteento waqti kasteento aan sii seexanaya habeenkii hurdada ka hor waxaan dhihi jiray ayuu yiri astaghfirullah ayaan anu akhrinayo ayaan ku seexan jiray. markaan seexanayo waan ku sii celin jiray ilaa ay hurdo iga imaado. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa laga arkay xuska ilaahay iyo faa'iidadiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu minal mustaqfiriin naga mid dhigo. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulmin toobatan nasuuxatan qabla almowt, inuu ilaahay subxaanahu watacaala una siiyo muraadkeena iyo muraadka muslimiinta. allaha sahla faraj khayr qaba allahna siiyo, meeshaan ka oomana allah naga oontiro dhammaanteenaba. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa nagu sugo. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ilaahu noo dambi dhaaf oo dambigeena kii hore iyo kii dambaba noo dhaaf. ilaahu waalidiinteena u naxariiso sidii anagoo yar noogu naxariisteen oo kale. ilaahu dambigooda kii hore iyo kii dambaba u dhaaf. ilaahu intii dhimatay qubuurtooda u waasici oo roodata min riyaadil janna oo walig. intii noolna ilaahay waxaan weydiinaynaa cimri barakaysan cibaado suuban madaxooda inuu ilaahay raajiyo biidni raxmaan. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in xalaal quutayaal ilaahay inuu naga dhigo. waxaan ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay xalaashiisa na haleeshiisiiyo. allaahumma kfinaa bixalaalika can xaraamik waaqninaa bifadlika caman siwaak. ilaahay xalaashiisa hanagu kaafiyo biidni raxmaan. gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo toobatan nasuuxatan qabla almowt allahana siiyo. kelmadda afkeena u dambaysana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhiga kelmadda shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. kelimatu tawxiid allaha nagu dilo. iimaankeena ilaahay hanoo quweeyo. waxaa jiro walaalo mar walba ducana soo weydiista. ilaahay waxaan weydiisanaynaa walaalahaas inta owlaad la-aan in owlaada ilaahay ku arsaaqo. inta xanuunsanna in ilaahay caafiyo biidni raxmaan. qof walbana meeshuu ku oomanya in ilaahay ka oontiro. dhammaan walaalaha owlaad la-aanta ee mar walba ducadan ha ku celceliyaan weliba ayagoo sujuudsan. rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru waarisiin. ducadaas aada ugu celceliya waydan anfacaysaa insha allah. qofkii dhibaataysan oo dhibaatooyin kale oo haystana wuxuu leeyahay rabbi innii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin. rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir. laa ilaaha ila allah alcadiim alxaliim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعوينك الله أخرسان كروي فربديهين مر والبن إن شاء الله إن إذا كوفوا درأي الرجينيا. إلهي وحان ويدي سنينا إن أدعادين أقبله. إلهي وحان ويدي سنينا إن كربضنا يفيده. qof walbana waxaan kula dardaarmay inuusan ducada iska bakhiilin oo ducooyinka badtado akhristo biidni raxmaan. aamiinteeni aamiinta malaa'igta allah kulmiyo. fiidiyowga intiisa badan waa iska baraarujin. waxaan soo qaadanay maanta 4 qiso oo gaagaaban. qisaskana waa cibro ayay u tahay dadka dhageysanayo. marka insha allah kuwii ku waana qaato oo ku camal falo oo istighfaarta joogtay iyo xuska ilaahay iyo ilaahay weydiisanaynaa. ilaahay yaa waafajinta leh. ilaahana waafajiyo biidni raxmaan. dhammaan walaalaha wixii ra'yigiina xagga commentiga noogu soo reeba. insha allah video inaa kor usii qaadiin oo like saartiin ayaan rajeynayaa biidni raxmaan. gambaleelkana ku xirta soo idiin soo gaaro wax kasteenta oo kheyr ah oo noqotaan dadka ugu horeeyo. waana mahadsantihiin markasta dhiirigelintiina. walaalo waxaa jira mar walba dhiirigelinta aanan naga hagranin oo nala garab istaagsan. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. jasahooda janno allah ka dhigo. ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. aan badino salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam. aanu ku wada salina nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam. meel kastoo aan joognana aan isxasuusino fadligiisa iyo faa'iidadiisa maa wax la soo koobi karo. hal mar ood ku salisa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa taban mar ama kuu salinayo oo kuu naxariisanayo allah subxaanahu watacaala. marka intaas ayaa idinkaga tagayaa maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. astawdicukum allah aladii laa yudiicu wadaa'icuhu fii amaan illah. awoodda laa xawla walaa quwata ilaa billaah. cajaa'ibteeda iyo siraheeda maa wax la soo koobi karo. waxaa shaqada laga soo ceeriyey walaalkay. hooyadii aad ayay uga murugeysay uuna walwalaysay. ilaaha ayay baryeysay waxayna ku celcelinaysay ilaaha awood iyo xeelad iyo quwad toona ma lihin. ilaahu wiilkayga shaqadiisa u soo celi. laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayay ku soo celcelinaysay. muddo yar oo 2 bari oo gudaheeda ah wiilkii waxaa soo wacay maamulkii una sheegay inaan laga maarmin oo shaqadiisa ku soo noqdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. jasaakumullahu khayran. waqtiga aana geliseen allah idinka jasa iyo abaalmariyo. jasadiinana jannaalaha ka dhigo. dhammaan walaalaha ducada naga soo codsaday inta xanuunsan allah caafiyo. inta shaqo la'aan shaqo khayr qabta allah u sahlo. inta awlaad la'aan awlaad baari allah siiyo. inta guur la'aan guur xalaal allah siiyo. intii ka xanuunsan yihiin awlaad allah u caafiyo. inta xabsiyada looga jiro allah ka soo deeyo. xabsiyada inta ku jirta allah ka soo deeyo.
inta awlaada laga qaatay oo gaalada iyo awlaada ka haysatan Allah uga soo qaado inta sharciyada ku culisiin Allah oo sharciyadooda u soo sahlo muraadkeena iyo muraadka muslimiinta Allah sahlo gacanteena tii sareysa Allah ka dhigo bugtadeena iyo baahideena bini'aadanka Ilaahay ma tusiyo umuureena Allah sahlo kurbadeena iyo kurubteena Allah feedo faraj khayr qaba dhamaanteena Allah na siiyo aamiinteeni aamiinta malaa'igtana Allah kulmiyo arladan ka duceynay samada Allah ka aqbalo aan ku wada salin walaalaha qaaliga ah nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuhalladheena aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima alhamdulillah ala ni'amihi tatimu salihat alhamdulillah ilaahiga nasiin nimcada islaamnimada caafimaadka saxada dhaqdhaqaaqa hadalka ilaahiga awood kale loo siiyay maalin kale iyo waqti kale iyo fursad kale na siiyay iyo maalmo kale iyo waqtiyo kale oo aan cibaadeysan jaanis noo siiyay ilaahay ayaa mahad iska leh ilaahiga islaamka naga dhigay ayaa mahad iska leh alxamdulillah waa maalin kale iyo mar kale iyo qisaskeeni laga arkay xuska Allah subhanahu wa ta'ala maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xawqalada ama la hawla wala quwwata illa billah faa'iidooyinka iyo mucjizooyinka iyo siraha laga helaba qisadan ugu horeysay ee ka hadlaysa xawqalada waxa ay leedahay waxa shaqada laga soo ceeriyay walaalkay hooyaday aad ayay u walwaleysay u murugoonaysay waa dareemi kartaa hooyo ilmaheedii ama wiilkeedii ama gabadheedii shaqo u shaqeynaysay laga soo ceeriyay oo shaqo la'aan u noqday hooyaday murugo kadib waxay bilowday inay Ilaahay barido inuu ku celceliso yaa rabbi awood iyo xeelad iyo quwad toona ma lihi ilaahayo wiilkayga shaqadiisa u soo celi ilaahu shaqadiisa u saqir ayay ku celcelinaysaa hooyaday ay leedahay kadib mana jirin yani amal kale inta awood Ilaahay ma ogiyo wax kale iyo meel kale oo aan la xariireyn oo bini'aadana ma jirin laba bari gudahooda markii hooyaday ku celcelinaysay la hawla wala quwwata illa billah ilaahina ay barinaysay in Ilaahay wiilkeeda shaqada ugu soo celiyo waxa la soo xariiray maamulihii una sheegay inuu soo noqdo warqadihiisana uu keensado lagana maarmi waayay shaqadii looga maarmi waayay ayuu u sheegay subhanallah hooyaday waxay tiri farxad meel ay isgeysay ayay waysay waa istaagtay oo waxay tukatay 2 ragco oo salaatu shukri ah waxay la yaabtay yani arinta sida fudud ee isku bedeshay alxamdulillah anina waxaan la yaabanahay dhahday dadku waaweyn miya iimaankooda aad u buuxaa ma ogi hooyaday wax Ilaahay kama barido ilaa waxaas sida ay yihiin ayay u dhacaan ay dhahday subhanallah hooyaday wax Ilaahay kama barido ilaa way heshaa si walba ay u adagtay si walba ay u culus yihiin Ilaaha noo xifdiyo ayay leedahay isheedana oo in dambe iyo kurba dambe Allah ka ilaaliye aamiin dhamaan hooyooyinkeenaba farxad Allah ku nooleeyay meel kasto ay joogan tan kalena waxa ay ka sheekeynaysaa ajaa'ibta iyo mucjizooyinka ay leedahay la hawla wala quwwata illa billah qofkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa jirtay xilliyada kamid waxaan igu dhacay goos xanuun gooskaas xanuunkiisa markii hore si fudud ayuu ku bilowday baad uma ihtimaam uma siin oo dhakhtar iyo waxba lama xariirin marka dambeento waxay leedahay xanuunku wuu soo taray wuu sii weynaanayay xanuun baabiyaal iska qaadanayay waa iska socday al-akhiir waxa uu gaaray gooskii xaalad aad u xanuun badan oo markii uu xanuuno maskaxda dhan ay xanuunayso qofkii goos uu xanuuno ayaa dareemi karo xanuunka uu leeyahay iyo waxa la dareemayo waxay leedahay xaalkayga xanuun baabi'iyo kiniiniyaal waa ka gudubtay oo marxalad oo waxaan tagay ay dhahday xanuun aan laga sheekeyn karin ah macnaha numberka ugu dambeeyay ayaa tagtay oo xanuun ah dhakhaatiirtana waxay dhahday in ay gooska waa ka saareenaa ay dhahaan ayaan ka cabsanayay oo maba u tagin dhakhtar waxaan bilaabay ay dhahday oo Ilaahay haleeshiisay inaan iraado la hawla wala quwwata illa billah markaan ku celcelinayay 100 mar 200 mar ilaa 300 mar markaan gaarsiiyay ayaa waxa ay qabatay hurdo waan seexday Ilaahayna anoo ka baryo Ilaahay xanuunka iga dulqaad oo caafi anoo dhahayo iska hurday ay dhahday waxay leedahay wallahu alladhi la ilaha illa huwa waxaan soo kacay aniga oo alam dhan iheenin oo alamkii iyo xanuunkii oo dhan iga tagay oo aad u maleynin qof xanuunsanaay oo kalento
aniga ayaaba shaki iga galay inuu goosi xanuunayay in kalenta ayay leedahay. alxamdulillaah, ilaahay wuxuu igu caafiyey kelimada laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waliba bilyaqiin aan u dhahay sababtoo ah qof xanuunka ka dulbatay ayaa ahaa, anigoo bilyaqiin aaminsan ilaahay isku dhiibay ayaan dhahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaa 300 mar oo kaliya ayaan ku celceliyey. ilaahayna xanuunka waa iga wada alxamdulillaah. waxay leedahay gabadhani ilaahay fadligiisa iyo tasjiicintaada iyo dhiirigelintaada ayuu ilaahay wuxuu igu waafajiyey inaan bilaabo xooqalada. waxay tiri waxaan rabaa inaan idinla wadaago qisada aniga xooqaladan dhex martay. waxaan ahaa qof xanuunsan, waliba muddo badan ayaan xanuunsanaay. kadib waxaan bilaabay inaan xooqalada akhristo aniga oo janalkiina la socdo. waxaan u niyeysanayay ay dhahday in ilaahay igu caafiyo, umuurahayga iga cakiran in ilaahay ii fududeeyo. waxaan ahay qof xanuunsan 15 sano. alxamdulillaah, waxay dhahday markii aan joogtay xooqalada aniga oon tiran u qabanaynin ayaan ku celcelin jiray xooqalada. ilaahay ayaa mahad iska leh. niyooyinkayga waxay ahaayeen oo dhan ilaahay wuu ii sahlay. waxaana idin sheegayaa maanta ayay leedahay in ilaahay igu caafiyey xooqaladii oo aan ahay qof caafimaad qabo, ilaahayna ii saqiray umuurahayga. alxamdulillaah, waxaan dhihi karaa arrintan waa arrin ilaahay watay. ilaahay ayaa mahad iyo shukri oo dhan u sugnaatay. waana idin bishaareynaya inaan ku caafimaaday xooqalada ayay leedahay. tan kalena waxa ay leedahay ma malaysan kartiin wallaahi waxa aan dareemayo shay qariib ayaan dareemayaa arrintii shalay dhacday. waxay tiri waxaan bilaabay inaan salaad tukado, sujuudo, ilaahay sujuuda ku baryo, duceysto. arrin culeysoo na soo wajahday in ilaahay naga dulqaado ayaan u niyeysanayay. waan xooqalaystay, waan akhrinayay xooqalada laa xawla walaa quwata ilaa billaah. marka aan marayo 907 mar oo xooqalo ah waxaa ii imaatay gabadhaydii iina sheegtay iina bishaaraysay in arrintii ilaahay kurbadii iyo culeyskii naga dulqaaday oyna xalismatay. alxamdulillaah, waxa ay leedahay xooqalada waxay naga xalisay mashaakilkeenii. mana malaysan kartid sidii ilbiriqsiyada iyo waqtiyada ay isku guraan ugu degdegta badan oo inoogu xalisay. kaliya waxaan akhriyay 907 mar kaliya oo aan akhrinayay laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaa arrinkeeni wuuba xalismay. alxamdulillaah, ilaaha mahad iska leh. qisadan kalena waxa ay leedahay waxaan ahay qof wareersan oo arrin culeys uu soo food saaray, waana cabsoonayay. ilaahay aan istikhaaro weydiistay, waana xooqalana waa akhristay laa xawla walaa quwata ilaa billaah. ilaahay ayaan u istikfaar weydiistay, waastaqfirullah ayaan ku celcelinayay. waxaan kaloo ku celcelinayay subxaanallaahi alcadiim. ilaahay wuxuu ii dooray arrinkii aan ku wareersanaay dhankiisa wanaagsanaay. sharti iyo xumaantiin ilaahay wuu iga leexiyey, qalbigaygana ilaahay wuu ii dejiyey. walaalaha qaaliga ah, qisaskeenii laga arkay laa xawla walaa quwata ilaa billaah, faa'iidooyinkeedii, fadligeedii iyo cajaa'ibteedii waxaan jeclahay maanta inaan in ka mid aan ka wada bogano dhammaanteena. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin waqtiga aana soo geliseen. jasaakumullahu khayran. intaa fiideo kan lamid iyo ka wanaagsanba ku kulmeyno ilaahay waxaan igu baryayaa inuu xifdigiisa iyo xirsigiisana geliyo, toobatan nasuuxatan qabla almowt uuna siiyo. gafkeena iyo geerideenana ilaahay ma kulmiyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa nagu sugo. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. بكتدن يباهدين الله دبولو قعنتين تيسريس الله كدغو ceebteena Allah asturiya ceebta muslimiinta, dambigeena iyo dambiga waalidkeena ay muslimiinta oo dhanba dunuubtooda Allah dhaafo. jannatul firdaws ala kuwa ku kulmo Allah naga dhigo oo xoodka nabiga ka wada cabo. Allahumma aamin. arladan ka duceynaa samada Allah ka aqbalo. aaminteeni aaminta malaa'igtana Allah kulmiyo biidni rahmaan. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu sugo shahaadada kalimatu tawxiid وأفكان كلمة أفكان أدم بيس أوكي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه ولا لها قالقة. خير أيان إلهي إذنك قبري أو إذنك ودعي.
sidaas iyo nabadgelyo insha Allah. Video waxaan rajeynaa inaad like saartay, siina share garaysay, subscribe-kana ku xiratay oo gambaleelka aad saaratay. Jazakumullahu khayran. Ma jeceshahay in cadawaaga aad ka guulaysato? Haddaba ku celceli digrigan 1000 jeer ugu yaraan maalintii. gabadhani waxa ay leedahay dhexday markaan akhristay digrigeyga iyo tasbiixdeydii maalinlaha ahayd markii qorraxda soo baxday ayaan raseexday. waxaan soo kacay xilliga barqada ahayd. kadib jikada waxaan isugu imaanay ani iyo gabar ehelkayga ka mid ah. waxa ayna igu tiri na ii waran qof ayaa dishay maanta, dad ayaa dishay. aniga oo yaaban ayaan waxaan iri seen qof u dilayaa aniga. markaasay waxay tiri bismillaah miyaad akhrisan? ku iri maxaa aragtay? waxay dhahday waxaan ku riyooday adiga oo dilaysid naag. si waxa ay ahayd naag xun wad hortaagneed waxaan ku qaylinayay ayay dhahday kasoo leexayay ku dilinay, kasoo leexayay ku dilinay. markaas ayay waxay ku jawaabtay maxaan dilaa, ayada ayaaba i dishay oo waxay igu dishay bismillaah. kadib naagtii waxaad ku tiri ayay tiri ma doonaysaa inaad badbaado adna lagaa badbaado? 5 arrin ayaan kuu sheegayaa. maya ma doonaya ayay dhahday inaan sameeyo arrimahaasi. kadib naagtii way dhacday oo way dhimatay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha qaaliga ee ugu xiran iyo dhamaan walaalaha cusub ee fiidiyoyadeena gadaal ugu soo biiray. haddaan ugu cusub tahay inaad gambaleelka ku xirato oo subscribe ku xirato si aad u noqoto dadka ugu horeeya oo soo dhaaf fiidiyoyina. Jazakumullahu khayran. waqtigaadna gelinaysiin Allah idinka abaal mariyo, jasihiina janna Allah ka dhigo. dhammaan walaalaha xanuunsan inta caafimaadka qabta caafimaadkooda la u siyaadi, inta xanuunsan Allah noo caafiyo, inta awlaad raadiska awlaad baari Allah sii, inta awlaad haysatana Allah u barakeeyo oo la koriyo awlaad saalixiin Allah uga dhig, intay ka xanuunsan yihiin Allah u caafiyo, inta shaqo la'aanta ah inta guur la'aanta ah dhammaan muraadyadeen iyo muraadada muslimiinta Allah sahlo. qof walba meesha uu ka kurbaysan yahay Ilaahay ka fiido kurbadiisa, culayskana fudeed Allah ugu bedelo, murugtana farxad Allah noogu bedelo, muraadkeenu abshir Allahna siiyo oo macsi aan lahayn. bogtadeena iyo baahideena Ilaahay bini'aadanka ma tusiyo, gacanteena tii sareysa Allah ka yeelo. aamiinteeni aamiinta malaa'igta Allah kulmiyo arladan ka duceynay samadana Allah ka aqbalo. aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. haddaba soo dhawaada walaalaha qaaliga, waa qisaskeeni laga arkay xuska iyo dikriga Ilaahay. haddaba aan u gudagalna qisadeena ugu horeyso. ma doonaysaa in cadawgaada aad ka guulaysato? haddaba akhri digrigan 1000 jeer maalintii ugu yaraan. qisadani waa qiso aniga u dhacday oo qof kale idiima soo warinayo. qisadan waxay u dhaxaysaa sida tan. waxaan akhristay digrigeyga maalintii ahayd, quraankeygii, tasbiixdeydii, adkaaraadkeygii iyo maxaa ahayd jadwalkeyga aan maalinlahaas lahaa aan akhristay. markii qorraxda soo baxdayna waan seexday. cabaar ayaan jiifay. kadib waan soo kacay xilliyada barqada camal ayaan soo kacay. jikada ayaan imaaday. waxaa joogtay gabar walaashay ah oo ehelkayga ka mid ah. kadib waxay dhahday maanta waxaa dishay aaminoy saaki waxaan ku riyooday adiga oo qof dilaayo. waxaan dhahay aniga ma qof dilay, waa ku qosli shibaa saga dhahay. waxay dhahday ma waxa akhrisaa bismillaah? hee maxaa aragtay? aan dhahay waxay dhahday waxaan ku riyooday adiga oo hortaagan naag aad iyo aad u xun oo waliba laga cabsoonayo. kadib waxaan ku ireeyay dhahday naag soo carar aaminoy, soo carar soo carar. kadib waxay tiri yey ku dilina soo carar ayaan dhahay maxaan dilaa, ayada ayaaba i dishay oo bismillaah ayay igu dishay ayay igu jawaabtay ayay dhahday naagtii. markaas ayaa waxaa dhahday ma rabtaa inaad badbaadid? haddaa rabta inaad badbaado waxaa sameysaa ayaa dhahday 5 arrin. adigana waa lagaa badbaadaya, adigana waa iga badbaadaysaa. kadib waxay ku jawaabtay ayay dhahday ma rabo inaan sameeyo. istaaga ayayna ka dhacday wayna dhimatay. haddaba maxay ahayd digrigaas aan ku celceliyay oo aan maalintaas iyo jadwalkayga ku jiray baryahaas oo dhanba wuxuu ahaa bismillaah. bismillaah ayaa wuxuu ku jiray jadwalkayga. alxamdulilah. qisadan kale ayadana bismillaah aan ka arkay ayaa waxay ahayd qof ka mid ah familkayga ayaa wuxuu ku jiray xabsi. qofkaasi markii uu xabsiga ku jiray waan fadhiisan jiray, waxaan akhrin jiray maalin kasteento digriyadeyda kaleenta markii laga soo tago digrigan ayaan aad ugu celcelin jiray oo ah bismillaah inaan akhriyo iyo suuratu yaasiin. markasteento yacni bismillaah iyo suuratu yaasiin dhameeyo aniga oo aan ka kicin salligii aan ku akhrinayay iyo goobtii aan ku akhrinayay taleefon ayaa ii soo dhacayay, akhbaar cusubna waan ka helayay. marka insha Allah digriga Ilaahay nooc kasta uu yahay aan ku dadaalno biidni raxmaan. faa'iidooyinka iyo nimcooyinka aan ka helay digriga Ilaahay ma aha wax la soo koobi karo.
ilaahayna waxaan ka rajaynayaa barwaaqooyinka iyo khayrka iyo nicamka inuu sidaas noogu daa'imo wixii shari xumaan ilaahay naga qabto. haddaba aan u gudagalna qisaskeena kaleento. qisadani waa qisaska laga arkay istighfaarta ayay iyadana ka mid tahay. waxaa soo warinaya qof walaal ah. qofkani wuxuu ku bilaabayaa qisadiisa subxaan allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah. qisadayda waxay ka bilaabanaysaa sida tan. waxaan ahay hooyo xaamilo ah, weliba bishii 7 ayaan ku jiraa. 2 sano ee uurarkeygii oo sanadkan ka horeysay waxaan ku dhalayay cirbada la yiraahdo foolisada. aad ayaan uga cabsoonayay, weliba saameynteeda farada badan ay leedahay oo la iiga sheekeeyay. waxaan ka cabsanayay sanadka 3aad inaan ku dhalo oo dhibaatooyin ii geysato, balse kama quusanin naxariista ilaahay iyo khayrkiisa iyo awoodiisaba kamaana quusanin. waxaanan xasuustay aayadan ah wamaa kaana allahu mucadibuhum wahum yastaghfiruun. marka aan xasuustay ayaan waxaan bilaabay ayay dhahday inaan istighfaarsado. waxaan bilaabay inaan istighfaarsado 1 saac salaada subax ka hor ayaan istaagi jiray, waan sunaysan jiray, kadib waxaan bilaabi jiray istighfaarta ilaa aadaanka fajarka ka dhaco oo aan salaada fajarka u istaago. alxamdulillaah sidaas ayaan waday ilaa laga gaaro maalintii aan dhali lahaa. alxamdulillaah waxaan go'aansaday inaan sanadkaani ku dhalin oo cirbad dambeenta ayaan ilaahay ka codsanayay oo aan ilaahay weydiisanayay oo niyeysanayay oo u niyeystay istighfaartaasi. waxaa la gaaray maalintii dhalmadeydii. waan imaaday isbitaalkii. waxaan imaaday isbitaalkii kadib markaan isbitaalka imaaday waxay leedahay wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa ghayruhu subxaanallah waanba dhalay weliba sida ugu sahlan anigoo wax xanuun ay qabanin. waqtigeygii loogu talagalay iyo waqtigay dhakhaatiirta ii qabteen ayaan ku dhalay si dabiici ah, anigoo wax cirbada laygu durin, wax kaalmaata laygu durin, wax xanuuna iyo tacab iyo shiddo aniga oo ka shakinayo ma dhashay ma foolatay mase ayaab ilaahay awlaadii iyo anigana kala keenay ayay leedahay. si dabiici ayaan ku dhalay. waxay leedahay dhakhaatiirtii way yaabeen, sidan si caadi ma aha ay leeyihiin ay dhahday. ayagoo dabcan ma fahmayaan ay dhahday faa'iidada iyo istighfaarta nicamta laga helo ayaga ma fahansano. waxay ahaayeen ay dhahday dad oo reer Yurub oo iska gaale alxamdulillaah ilaahay mahad iska leedahay oo na siiyay istighfaarta nicmadeeda farada badan. markaas qisadeeda oo gaaban gabadhani waxay ahayd gabar ku dhasho cirbad, waliba cirbada foolisada ayadoo la foolinin ma dhali jirin. 2 sano ayay saas ku dhashay. sanadkii 3aad uur markay yeelatay ayadoo 7 bilood ay bilowday inay istighfaarsato. markii ay waday ilaa ay maalintii dhalmadeeda laga gaaray ay istighfaarsanaysay si fudud oo waliba fudud ayay ku dhashay iyadoo oon dareemin wax xanuunkii foosha oo la dareemaya wax kaalmaati aanan qaadanin. alxamdulillaah ayay leedahay fadligaas iyo barwaaqadaas iyo nicamkaasna waxay ku heshay istighfaarta. tan kale ayadana waxay ka hadlaysaa istighfaarta. gabadhani waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ahay qof idinku xiran, waxaan aad u dhageysan jiray qisaska istighfaarta. waxaan u maleyn jiray wax badbadisa ay iska sheeko inay tahay waxa aad ka sheekeynaysiin oo wax macquul ah ilama ahaan jirin. ilaa aniga ay ugu imaatay maalintii dambeento waxay u dhacday ay dhahday mushkilad aniga ninkeyga ah. waanan mushkiladeena ma ahayn mid xal iyo rajo lahayd. xalka iyo rajada 100% ayay ahayd. aad iyo aad ayay arinteena isugu xirxirneed. quus meesha ugu dambeysay ayaan taagnayn ayay dhahday. marka dambeenta qadarka ilaahay ayaan ku qancay. waxaanan bilaabay inaan quraanka akhriyo, salaada nabiga aan akhriyo, qiyaamul leyl aan sameeyo, istighfaartana aan joogteeyo. waxay dhahday maalintii iyo habeenkii waxaan ahay qof istighfaarsanayo 4000 kamana badin karin ay dhahday. markaas waan ku cusbaa istighfaarta. waxaan kaloo akhrin jiray ayay dhahday laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin ayaan ku celcelin jiray. alxamdulillaah waxay dhahday waxaan markii quusti iyo dhibaatada igu sii badatay waxaan go'aansaday ayay dhahday inaan sii badiyo istighfaarta oo aan akhriyo ilaa 10,000 oo mar. markii aan sidaas u waday ilaahay baan ku dhaartay asaga ayaana warkayga markhaati iga dhahday. markii isbuuc aan waday 10,000 oo istighfaar xaalku wuu isbedelay si tartiib xaalka isku sii dhiibay.
alxamdulilah fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ma ahayn mid rumaysata inay mushkiladan yacni ay sahlanaan doonto xalkeeda amalna ma uu jirin laakiin waxay dhahday allah subxaanahu watacaala arinteena ayaa ilaahay sidii wanaagsaneed u bedelay arinteenani way xalsantay faraj ayuu ilaahayna siiyey kurbadii farxad ayuu ilaahay noogu bedelay alxamdulilah nimcadaasna waxaan ku gaaray ayay dhahday istikfaarta oo aan akhrin jiray maalintii 1,000 mar iyo anoo ku celcelin jiray laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin waan ku celcelin jiray ayay dhahdeen waxay kaloo sameyn jirtay inay quraan akhrin badisay salaatuleyl ay samaysay mushkiladeedii ee quusta ka taagneed ayuu faraj iyo farxad ugu bedelay reerkeedina dib ayuu u mideeyey qisadana waxay ku saabsan tahay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo faa'iidooyinka laga helo qofkaani waxa uu leeyahay waxaan waswaas ayaan qabi jiray oo waxaan ka waswaasi jiray dhimashada muddo 5 bilood ah maana seexan jirin marka aan seexanayna si raaxo leh kuma seexan jirin nafteed aad ay u daalay jirtay oo mar walbeento qaraw iyo riyo iyo waswaas oo dhimasho ayaan qabi jiray oo dhahay kadib waxaan bilaabay ayuu dhahay inaan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam siiqada gaaban oo akhriyo allahumma salli ala nabiyina muhammad maalintii waxaan akhrin jiray ayuu dhahay 2,000 ilaa 5,000 intii aan ka gaaray ayaan akhrin jiray alxamdulilah waana caafimaaday si guud ayaan caafimaaday ilaa mahad iska leh waxaan ku caafimaaday ayuu leeyahay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam akhrintiisa qisadan kalena ayadana waa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ay leedahay marka aan bilaabay inaan joogtay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan arkay ayuu leeyahay qofkan in arrimahaygu dhan ii sahlanaanayaan cibaadadii aan u degdegayo khayrkii oo dhan ba aan jeclaanayo u degdegayo aniga oo ka dheeraanayo oo waxaan is arkay ayuu dhahay dunuubtii oo dhan ka dheeraanayo nafteedu waxay ku dadaalaysaa inay yacni rabbigeeda raali geliso wixii uu ilaahay yacni naga reebo oo dhan aan ka sikado oon ka leexdo si un ilaahay aan ku raali gelin lahay un baan yacni ku dadaalay ayuu leeyahay qofkani qalbigaygu wuxuu noqday qalbi khafiif oo jilcan oo ilaahay u tadarrucayo oo ilaahay isku dhiibay ayuu noqday alxamdulilah marka awal aan ahaa qof yacni cariirib fara badan dareemayo farxad darro dareemayo mashquul adduunyada aan isku mashquulin jiray oo adduunyada ayaa cariir igu ahaan jirtay alxamdulilah noloshayda oo dhan way isbedeshay waana ka raaxaystay ayuu dhahay adduunyada iyo dhibaatadeeda alxamdulilah saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam farxad fudeed ayaan ka helay ayuu leeyahay hadaan rabna arrimaheena adduuni aakhiri in ilaahay noo fududeeyo waa inaan ku dadaalnaa xuska ilaahay haddii ahaan leed istikfaarta haddii ahaan leed xooqalada haddii ahaan leed quraan akhriska haddii ahaan leed tasbiixdii taxmiida xooqalada akhrino yattaqillaaha yajcal lahu makhraja ayuu allah subxaanahu watacaala leeyahay marka ilaahay alla ka cabsiga aan ku dadaalno ilaahay aan isku dhiibno arrimaheennana in ilaahay noo islaaxiyo ilaahay aan u tala saarano xilli kasteento xilligaan barwaaqada ku jirno xilliga aan dhibaatada ku jirnoba ilaahay si isku mid aan yacni xaggiisa uga cararno marka aan dhibaataysanahay keliya maaha inaan u soo cararno xagga ilaahay marka aan dhibkana haysanin oon barwaaqaysana oo nimcaysana oo caafimaadka aan haysano oo aan haysano caqliga iyo xooga iyo xoolaha aan haysano ilaahay naftigeena aan ugu mahadcelino u shukrino ilaahay digrigiisa iyo daacadiisa aan ku dadaalno ilaahayna xaqa hanagu sugo mar walba inta allahuma yaa muqallib alquluub ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا ودنب دافو دنب يدينا كوي هوري كوي دنب مديري مدوين مدا أغناي مدا أغنبو إلهي دنوبتين هنو دافو إلهي عبادة انت أعماشي انت يرو وناكسن أنصمي سنين إلهي مدا نلا أقبل الله كدغو أعماشي مدكر لو قاد الله كدغو mid la aqbalo allaha ka dhigo waalidiinteena allah u naxariisto inta nool allaha siiyo cimri iyo caafimaad barakale madaxooda allaha noo raajiyo cibaado suuban allaha noo siiyo inta dhimatayna allah subxaanahu watacaala qubuurtooda allaha uga dhigo rawdatan min riyaadil janna allaha uga dhigo gafkeena iyo geerideen ilaahay ma kulmiyo toobatan nasuuxatan qabla almowt allahana siiyo كلمة أفكين وقدم بيسنا كلمة التوحيد الله كيالو أو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله نوافجيو قيمها أي شرفت مضان أو جنال كينو كحيران أو مروال بنا الإيري قليو آد يوم هاتسنتهين إن شاء الله ولا لا عسبين وصوبير دونا أيضا وسود وينينا إن شاء الله جنال كوما جنال كيني وجنال خير كإيو وناق إيو
dikriga ilaahay la isku xasuusin doono biidni raxmaan. soo dhawaada insha allah, like-tana saara si fiidiyowyada meel fiican noogu gaaraan oo khayrka u faafo, una sii sheer gareeya walaalaha kaleeto. inta aad la jeceshahay wanaaga khayrka familkaaga oo dhan u sii sheer gareey, iyo ehelkaaga, iyo inta aad jeceshahay inay dikriga ilaahay ka faa'iideystaan. insha allah subscribe-kana ku xiro sida aad u noqoto qofka ugu horeeyo oo fiirsado oo ka faa'iideysto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. عن كاركي أذيك أو شيء قصصك إيه فائدوينك لغيلي استغفارت إيه سورة البقرة. وحاي هاي عريري مرغو حنونو يعليسي أهدو فربضا. وحاني يستئنا أن أخريو مالنتي صدنكون واستغفارة إيه سورة البقرة. الحمد لله نلو الشهيدين وحي اسكو بدا الشيء حال عريري iyo murugo ah una bedelmatay farxad, reereen, horumar iyo guul. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. jasaakumullahu khayr ayaa idin leeyahay. waqtiga iyo juhdiga iyo taamka aana soo geliseen jasiinana jana allaha ka dhigo. dhammaan walaalaha kurbeysan kurbad allaha ka fiidi, inta xanuunsan allaha caafiyo, inta laga xanuunsan yahay allaha caafiyo, inta awlaad la-aan awlaad baara allaha siiyo, inta guur la-aan guur xalaal allaha siiyo, inta xabsiyada ku jirta allaha ka soo deeyo, inta deemaysan deemaha allaha ka gudo, qof walba meeshuu ka ooman yahay allaha ka oontiro, muraadkeena oo macsi lahayn allahna siiyo, muraadkeena iyo muraadka muslimiinta oo allaha sahlo, waalidkeena iyo waalidkoodana allaha u naxariisto, intii nool allaha siiyo cimri caafimaad barakale iyo cibaado suuban, intii dhimatayna qubuurtooda allah u waasiciyo, allah uga dhigo roodata min riyaadil janna. gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo, waqtideena iyo baahideenana bini aadanka ilaahay ma tusiyo, gacanteena midii sarreysa allah ka dhigo. aan ku wada salino nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam, aan badino dikriga iyo xuska ilaahay. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. haddaba waa qisaskeenii laga arkay xuska ilaahay iyo faa'iidadiisa iyo fadligiisa iyo cajaa'ibtiisa. qofkan ugu horeeya waxa uu ka hadlayaa qisadiisa suuratul baqara iyo istighfaarta oo ka arkay. marka wuxuu leeyahay markaan in badan idin fiirsaday oo arkay qisooyinka iyo faa'iidooyinka aad ka sheekeynaysiin oo laga arkay istighfaarta iyo suuratul baqara, ayaan waxaan bilaabay inaan akhristo anigana. waxaan dareemayay ayuu leeyahay kurbo, culays, caafimaad darro, shaqo la-aan, lacag la-aan, adiga murug adduun ayaa haysatay. kadib waxaan go'aansaday ayuu yiri inaan bilaabo maalintii 30 kun oo istighfaar iyo inaan akhriyo suuratul baqara si ilaahay culayska fudud igu bedelo. ilaahay ayaan markhaati gashanayaa hadalkayga inuu saxiix yahay. wuxuu leeyahay markii aan bilaabay inaan istighfaarsado oo aan akhriyo suuratul baqara, alxamdulillaah noloshii mugdiga ahayd, cariiriga ahayd, kurbada ahayd, wax la-aanta ahayd, caafimaad darrada ahayd waxay isku bedeshay nolol farxad ah, reereen ah, caafimaad, sacaado, horumar, shaqo, wanaag. adiga bini aadan intuu tamanin jiray oo dhan ayaan ku helay ayuu leeyahay. alxamdulillaah noloshayda oo dhan way isku bedeshay. faa'iidada aan ka helay istighfaarta iyo suuratul baqarana ma aha wax la soo koobi karo. wallahi waxaan isdhihi jiray marka aan qisooyinka dhageysto waxaan sidee macquul ku yihiin. kadib waxaan bilaabay ayuu dhahay inaan tijaabiyo saliga nabi sallallahu calayhi wasallam aniga oo akhrinay allahumma salli wa sallim ala nabiyina maxamed. wuxuu dhahay maalintii oo dhan yacni ilaahay ayaan baryi jiray aniga oo arrimahayga yacni u sheeganayo. ilaahayna waxa uu yacni igu siiyey saliga nabi sallallahu calayhi wasallam wax kasta oo qulubteyda ku jiray, duruuf kasteentana waan uga baxay alxamdulillaah. riyooyinkaygana ilaahay wuu igu rumeeyey alxamdulillaah. waxa uu leeyahay waxaan hadda dareemay yaqiin fara badan. awal waxaan isdhihi jiray sidaa macquul ma aha oo yacni ma inaan salli nabiga bas ina akhriyo ama istighfaar akhriyo ama wax yar oo dikri oo akhriyo miyaa noloshayda sida kale u bedeli karto. yacni awal yaqiin dhab ma aanan haysanin. qof muslim waa ahay, waa aaminsanaay, laakiin yaqiin dhab ma aanan haysanin. haddase wuxuu dhahay waxaan helay yaqiin dhab ah oo dikriga ilaahay aan u qaaday. qofkana waxa uu leeyahay wallaahi waa run warka aad sheegaysaan iyo qisaska aad soo gudbinaysaan waa kelmad saxiix ayuu leeyahay. aniga ilaahay waxa uu suuratul baqara iiga qaaday yacni dad dhibaato iigu haayeen ayuu ilaahay iiga fiiday shartooda iyo xumaantooda. markaan joogtay akhrinta suuratul baqara oo istighfaartana laazimay, shartoodii iyo xumaantoodii ayuu ilaahay iiga xijaabay. alxamdulillaah ayuu leeyahay. qisada gabadhana waxay leedahay assalaamu calaykum
waxay leedahay walaalahayga xaaladeyda waxay iska eed xaal waliba shaqsi aad iyo aad u deeq iyo murugo dareemayo duruufteydana nololeedna aad ayay u liidatay wax maaliyad iyo hadda hanti oo aan haystan ma aysan jirin waxaa liigu lahay deymo fara badan deymahayga zaaid ayay isku korkoreen oo farada uga bateen subxaanallah ayay leedahay waan ku qanacsanahay duruuftaas oo waan ku sabarsanay qof ku sabarsan waa ahay laakiin waxa ay dhahday waxaa dhib igu haysay deyntii liigu lahay oo la i weydiinaya mar walbeento deynta sideeda waa murug habeenkina waa murug marka waxay dhahday aad ayaan uga murugaya markii dambeyntu waxaan bilaabay ayay dhahday inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba siiqada gaaban ee ah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad anigoo kumanaan kun iska akhrinayo iska wado ayaan iska akhrisanahay ayay dhahday waxaan u niyeysanay in Ilaahay deynta iyo culayska iga gudo alxamdulillah waxay dhahday anigoo murugaysan oo murug meesha ugu dambeysay marayo ayaan iska akhrinayo oo iska wada maalin walbeento marka dambena Ilaahay faraj ayuu ii furay oo deynta Ilaahay uu iga guday alxamdulillah ayay leedahay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa nimco iyo barwaaqo iyo faraj aan la filanaynin marka waxay leedahay Ilaahay wuxuu iga guday saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam liajligiisa deyntii iyo qurbadii farajna Ilaahay uu igu furay oo nolosheedii way ii waasacnimo noqotay qofkana waxa uu leeyahay muddo dheer waxaan akhrisan jiray suuratul baqara isbedelo iyo faa'iidooyin fara badan waan ka helay oo waan ka arkay ayuu leeyahay alxamdulillah Ilaahay ayaa mahadoo dhan iska leh markii dambena waxaan haddana ku daray istighfaarta alashaan nolosheeda sidii u sii qurux badnaato markasteento aan istighfaarta iyo suuratul baqara inaan isku daro aan bilaabay oo joogtay alxamdulillah nolosheeda way ii qurux badnaatay oo waxaan galay nolol sacaado farxad reereen iyo guulo fara badan ee u soo hoyatay ayaan helay ayuu leeyahay ilaahan i waafajiyay inaan akhriyo suuratul baqara iyo istighfaarta adinkana waad mahadsantihiin sida aad noogu dhiirigeliseen qisaskeena maanta intaas ayuu ka egyihiin laga arkay xuska Ilaahay waliba aan ku soo qaadanay suuratul baqara iyo istighfaar iyo waliba saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalaha qaaliga aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إلهي حق خيرك وناك هنوصه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي قفكيني قيردين مكل ميو إلهي توبة نصوحة قبل الموت ألا نصيو إلهي ذنوبتنا تيهور يتي دنب مد يري مد وين مد أغنهي مد أغن بإله نو دنب دافو إلهي نحرستي سنتي أدوني آخر والدين تين الله ونحرستو سيدا نو يري نو ونحرستين وكلانتو انتي نول عمر إعاف مد بركة الله سيو عبادة صوبنا الله أقدره انتي لمتين قوورتو الله واسعيو روضة من رياض الجنة الله وريو أنا نقوي جنة بدون حساب قال الله نقريو ولا سابق عذاب إلهي نوحن كويديسنينا إن نحوتك النبي صلى الله عليه وسلم كوذا عبنو وجنة الفردوس اللي على كوذا كلنو إلهي وحن ويديسنينا حق إي خير إنو نوصو إلهي وحن ويديسنينا إنو قفكيني قيردين كل من إلهي وحن أقمهد إلينا نمعوينك إنك فربضا أو نسيي أو كمتاهي عافماتك أو كمتاهي إسلام نمضا أو كمتاهي عقلها لما سو كوبي كرا نمعوينك إلهي نسيه الحمد شكر رب العالمين إلهي نوسي هذيو إلهي نمعوينك إنو نسقانا مقليو والله نمحوي دي سنين إنو نحريستي سأدوني آخر ونصيب بإذن الرحمن جزاكم الله خيرا ولا لا مرغول بنا داودو نديري قليو نو شير قريو قصص كود لوقا نغلسو وذاك حقي واتسابك آدي أمهاتيهين إن شاء الله دمان ولا لا عصبو كالانتو وانسود بينينا جنال كان إن شاء الله وعجنال كفائيد دونتو خير aad ka heli doontaan dhamaanteen inaan ka wada faa'iido doono adduunyada waa wax yar oo iska kooban laakiin waxa ka badan adduunyada aakhiro oo rabta amal wanaagsan in loo sameeyo Ilaahay waxaan weydiisanaynaa acmaasha wanaagsan inuu waafajiyo oo acmaasheena iyo khayrkeena riya iyo istutus oo Ilaahay nooga dhigin waad mahadsantihiin ku soo dhawaada janaalka insha Allah video markaa daawataan like saara usii sheer gareeyo walaalaha kale inta gambaleelkana ku xirtaa السلام عليكم بارك الله فيكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه qof mar walbo Ilaahay baryo balse ducadeyda ma ahayn mid la ajiibayo
markii dambe ilaahay wuxuu igu ilhaamiyay inaan istighfaarta bilaabo. markaan wada cabaar istighfaartii ilaahay wuxuu igu baraarujiyay dunuubtii aan galayay oo kamid ahayd xanta, waliba si qosol oo kaftan ayaan dadka ku xaman jiray. waxaan ahay qof salaada aad u dibdhiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doona. jasaakumullahu khayran waqtiga iyo juhdiga aana geliseen. Allah idinka abaalmariyo, jasihiinana jannaalaha ka dhiga biidni raxmaan. alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iskale maalin kale iyo xilli kale iyo waqti kale inta jaanis inoo siiyey inaan u cibaadaysano. ilaahay yaa mahad iskale islaamka naga dhigay. ilaahay yaa mahad iskale caafimaadkana siiyey. ilaahay yaa mahad iskale dhammaan nimcooyinka uuna siiyey ayaan uga mahad celinaynaa. dhammaan walaalaha ducada naga soo codsaday si babliga si baraafid ilaahay waxaan uga baryaynaa muraadkooda oo macsileen inuu ilaahay siiyo, in ilaahay u dambi dhaafo, in ilaahay culeysyada ay tabanayaan oo ka dul qaado, inta xanuunsanna uu siiyo caafimaad sariica, inta awlaad la'aan awlaad baari uu siiyo, inta guur la'aan guur xalaalo uu siiyo, inta xabsiyada ku jirta xabsiyada in ilaahay ka soo deeyo, inta deemaysan deemaha in ilaahay ka gudo, inta kurbeysan oo shaqo la'aan shaqo khayr qabto uu siiyo. qof walba meesha uu ka kurbeysan yahay Allah ka fiido kurbadiisa, muraadkiisa oo macsileen Allah siiyo, culeyska fudud Allah ugu bedelo, kurbadana farxad Allah ugu bedelo biidni raxmaan. bugtadeen iyo baahideen ilaahay bini'aadanka ma tusiyo gacanteena natii sareysa Allah ka dhigo. aamiinteeni aamiinta malaa'igta Allah kulmi arlada ka duceeyay samada Allah ka aqbalo. soo dhawaada walaalaha qaaliga aan ku wada salino nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabiyyina Maxamed. hadaba waa qisaskeeni iyo qisaskii xuska ilaahay iyo fawaa'ida iyo ajaa'ibta laga arkay ayaan maalin kasta inta jeclahay inaan idiin soo gudbiyo inta awood hayo biidni raxmaan. qisaskeen ugu horeeyo waliba qisadeen ugu horeyso waxaa noo soo gudbinaysa gabar waxa ay leedahay waxaan ahaa qof mar walba ilaahay baryo laakiin ducadeydii ma suurtagelaynin oo ma xaqiiqoobaynin. xilliyada kamid ah ilaahay wuxuu igu ilhaamiyay inaan bilaabo istighfaarta. si kadis ah markii aan bilaabay istighfaarta oo aan waday muddo bil ah waxaa ii soo banbaxay oo aan arkay ciladaha ay haystay oo loo aqbalaynin ducada. waxaa kamid ahayd inaan dadka xaman jiray waliba anigoo si kaftan iyo qosol ah oo xamanayo. waxaan ahaa qof salaada dibdhiga. markii aan bilaabay istighfaarta waxaan ku daray duco. waxaan bilaabay ducada markii aan bilaabay arrimihii waxay noqdeen kuwo si tartiib isku furfurayo oo u sahlanaanayo, noloshaydu way isbedeshay. salaadii ayaan bilaabay. kadib waxay dhahday xumaantii ayaan si tartiib iyo xanti iyo ayaan si tartiib aan iskaga joojiyay. kadib waxay dhahday guur ayaan helay, waliba waan guursaday. waxaan guursaday macallin kamid ah macallimiinta jaamacadda. marka waxay dhahday daraasada waa kadib dhici jiray oo waxaan ahaa qof oo salaada caajis kaslaan waxbarashada adiga iska arrimihii waxay dhahday arrimo waxay iska ahaayeen iska dibdhacayo nolol iska khiyaali isaga noolaan jiray. waa guursaday dhahday marka dambeento waan fiicnaaday istighfaarta markaan bilaabay. waxay dhahday xanti waan ka go'ay, salaadii waan joogteeyay. kadib ilaahay wuxuu ii sahlay guur, waliba waxaan guursaday macallin kamid ah macallimiinta jaamacadda. waxaan noqday ayay dhahday kadib inay darajooyinkayga jaamacadda ay kor ay soo noqonayaan oo si fiicnaanayaan sababtoo ah waxay caawinayay dhahday zoojkayga marna ahay macallinkayga ayay dhahday. waxaan dareemay raaxo nafsi ah. alxamdulillaah noloshaydu way isbedeshay. waxay leedahay cajaa'ib fara badan ayaan helay alxamdulillaah. waxay leedahay hadda aniga waxaan qof xaamile ah. ilaahay waxaan ka baryaa arrimahayga iyo dhalitaankayga iyo umuurahayga kale inay si sahlan ay igu dhamaadaan. waxaana qof walbeento aan ugu nasteexaynaa ilaahay bari hana isdhiibin dadaal. maxay ahayd xumaanta iyo waxyaabahaasna ka istighfaartana badi ayay leedahay. kan kalena waxa uu leeyahay assalaamu calaykum. waa markii ugu horeysay oon idinla soo wadaago qisadayda aan kusoo gudbiyo baraha bulshada. qisadeydii waa qisada laga arkay istighfaarta iyo fadligeeda. waxa uu leeyahay qofkani bil ka hor wuxuu dhahay wax lacag agteyda ma oolin oo wax ma haysan hanti waxaan u baahnaa wax qarashaad isaga baahnay sababtoo ah bini'aadanka wuxuu u baahan yahay Soomaa qarashaad adduunyadii oo dhan ma kala soconayso ilaa qofka inuu jeebkiis wax ku jira ma ogeey. waxa uu dhahay markii wax la'aan igu dhacday waxaan dareemay in dambi aan galo igu imaatay cakirnaanta iyo wax la'aanta. waxaan bilaabay inaan istighfaarsado waliba anoo u niyeysanayo inuu Rabbi ii dambi dhaafo.
meeheen niyadeyda inuu ilaahay oo yacni wax igu siiyo. waxaanan yacni bilaabay inaan yacni aan dikriga ilaahay joogteeyo, qur-aanka inaan khatimo, inaan suuratul baqara akhriyo maalin walbeento. allaahumma laka alxamdu ayuu leeyahay. bil kadib ilaahay wuxuu igu arsaaqay yacni mablaq lacageed oo ilaahay igu arsaaqay, hadiyooyin fara badan aan helay. waxa uu leeyahay bal fiiri fadliga istikfaarta iyo dikriga ilaahay sidoo looga helayo raax cajiib ah. qofkii ilaahay dartiisa wax uga tago, ilaahay wuxuu ugu bedelayaa wax ka khayr badan. kaasna waa wacdkii iyo ballanta ilaahay, wax shaki ah kuma jiro. waxa uu leeyahay yacni xumaanta ka tag si aad ugu raaxaysato wanaaga iyo khayrka ayuu leeyahay. marka waxaana loo baahan yahay ayuu leeyahay qofkani markaad istikfaarsanayso inaa yacni aad dunuubtaadii soo xasuusato, oo dunuubtaadii yaryareed iyo waaweyneed aad niyadda soo gashato ood ka shalayso. sababtoo ah wuxuu dhahay istikfaar ay la socoto macsiyo waxba ma tarayso. marka waxaa la rabaa inaad mar walba inta dunuubtaadii aad yacni xasuusato adoo istikfaarsan aad niyadda ku qabato, ilaahayow dembigaas iga dhacatay kahor, ilaahu iga cafi adoo leh inaad istikfaarsato ayaa la rabaa, oo dembigaaga aad niyadda ku hayso oo aad ilowsanaanin. marka waxa uu leeyahay macaanka iyo naciimka iyo fadliga iyo fadaaisha laga helaya istikfaarta ma aha wax lasoo koobi karo. aad ayaan uga faa'iidaystay oo nolosheeda isku bedashay. qofkan kalena waxa uu leeyahay waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qisadeyda aan ka arkay xuska ilaahay. waxay leedahay gabadhani waxa aan jeclahay inaan idinla wadaago qisadeyda aan ka arkay xuska ilaahay. alxamdulillaah ayay leedahay. muddo yar ka hor waxaan go'aansaday inaan hadda kadib aan sameeyo qiyaamuleyl, inaan akhriyo suuratul-baqara, inaan sameeyo maalintii 3,000 oo mar oo istikfaar ah, aniga oo ilaahay weydiisanayo inuu i siiyo shaqo wanaagsan. maalin maalmaha ka mid ah galab casri weliba waxaa ii imaatay saaxiibadeyda ayadoo ii sheekeynaysa iyo warkeeda waxay kusoo darteen walaalay maad ka shaqaysid yacni shaqooyinka madaarka iyo garoomada ma raadsatid. anigana shaqadaas waa jeclaay, laakiin waxay dhahday shahaadadeydii yacni ma ahayn mid anfacayso oo yacni naasibayso ma ahayn ay dhahday. waxay igu tiri marka waxay dhahday waxaan aqaanaa qof ka shaqeeya meeshaas oon kugu xirayaa, ma kugu xariirinayaa, marka qofkaas la xiriir ayay u dhahday. markii lala xiriiray oo loo sheegay yacni shahaadada aan haysto nooceeda iyo arrimahayga markii looga sheekeeyay, waxay dhahday boos ayaaba naga bannaan, qof ayaaba naga tegay hadda. marka waxay dhahday waa lagu qaatay, soo shaqogal ayay u dhahday warqadahaada iyo shahaadooyinkaaga iyo codsiyadaada la imaaw. waxay dhahday subxaanallah, waxay igu noqotay wax oo faj'a oo la yaab leh igu noqotay. alxamdulillaah nimcadaas iyo fadligaas ilaahay wuxuu igu siiyay ayay dhahday. marka xagga ilaahay xuska ilaahay u noqday, akhrista suuratul-baqara, qiyaamuleyl sameeyey maalintii adiga 3,000 oo istikfaar camal aan sameyn jiray, aniga u niyeysanaya in ilaahay shaqo igu sahlo. alxamdulillaah shaqadina meel dhow ayuu ilaahay iga siiyey. alxamdulillaah ayay leedahay. watacaala ayaaba wuxuu ku leeyahay aayad quraan ah, waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja. qofka ilaahay ka cabsado oo alla ka cabsi iyo la imaado, ilaahay makhraj iyo manfad iyo irid ayuu u feedayaa. waxaa kaleento allah subxaanahu watacaala leeyahay udcuuni astajib lakum, ibarya waan idaajiibayaa. ilaahay wax kasta oo laga baryo lagama waayo, balse anaga ah addoommo caasiyaal ah. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in umuuraheena noo islaaxiyo adduun iyo aakhirabo. ilaahay dembigeena kii hore kii dambe mid yar iyo mid weyn, midaa ognahay midaa ogeynba allaha noo dhaafo. waalidiinteena ilaahay u naxariisto adduun iyo aakhirabo. inta nool cimri iyo caafimaad barakale iyo cibaado suuban allaha siiyo. intii dhimatayna qubuurtooda roodatan min riyaadil janna allaha uga dhigo, sidii anagoo yaryar noogu naxariisan jireen oo kale ilaahay ugu naxariisto. ilaahay waxaan weydiisanaynaa acmaasheena yar ee saalixada ah inuu ilaahay noo aqbalo oo mid ila koryeelo, oo ilaahay ka dhigo gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo. toobatan nasuuxatan qabla almowt allahna siiyo, yaqiinta allaha nagu sugo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa alaamina inuu ka yeelo shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullah. khayrka iyo wanaagana allaha nagu sugo. allahuma yaa muqalib alquluub thabbit quluubana calaa diinik. allahuma yaa muqalib alquluub ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباعه
اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إلهي بدنكينا عذاب الدنيا عذاب الآخرة الله كبد باديو مصيبوينك وريغا إلهي بربره نغمريو. إلهي أعماشينا إيا نيدينا رياي استطس إلهي نغمقليو أعماشينا أعمال استطس إلهي كمريو. إلهي وحان ويديسان إنها خير ودن إنو أكتينو كل ميو. ومن يريد الله خيرا يفقهه في الدين. إلهي قفكو خير كلا دونا الدين تفانسيا إن إلهي الدين تفاهم كذا يكون لقن كذا يجعلها شذا بإلهي نوفض يا إلهي ويديسنينا قلوبتنا دين الله كحسليو. إلهي وحان ويديسنينا قف والبقو عليس وساريا عليس كإنو إلهي فضل وبدلو قف كستنتو مرويسن فرحة إنو إلهي سيو قف كستو قربيسن إنو إلهي قربض كفيدو dad badan oo walaalo oo waxaa jiro la nool waswaas xanuuno nafsi ah dhammaan walaalaha xanuunsan ilaahay caafiyo qof walbana meesha ku qurbeysay allaha ku qurbatiro waana salaamaya walaalaha qaaliga aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashadiina insha Allah fiidiyoga inaad like saarteen waan rajeynayaa una sii share gareyseen walaalaha kaleento insha Allah subscribe iyo gambalaalka ku xiro si uu kugu noqdo qofka ugu horeeyo oo soo dhaco waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه.